بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد dhegeystayaasha sharafta leh iyo daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta naga mudan kusoo dhawaada mar kale iyo casharkeenii chemistry secondary form 4 maanta waxaan bilaabaynaa chapterka labaad oo ah alcohols phenols and ethers oo laisku yiraahdo functional groups ayaa maanta bilaabaynaa. Functional groups waa groups shaqeynaya weeye oo hawl qabanaya sida hore aynu soo marnay organic compoundska waxaan ka soo hadalnay carbohydrateska ayaan ka soo hadalnay carbohydrateska ama hydrocarbonska afwan hydrocarbonska ayaan ka soo hadalnay. marka chemistry-yahanadu waxay u kala qaadaan organic compoundska labay u kala qaadaan. waxay u kala qaadaan hydrocarbons iyo waxay u kala qaadaan iyo functional groups ay u kala qaadayaan. hydrocarbonsku waxay aaminsan yihiin waa kuwii aynu soo marnay waa alkane, alkyne, alkyl kuwaas iyo benzene kulli waxa weeyaan waxay aaminsan yihiin inay yihiin inert kuwa oo waxsanaya yani aan iskood shaqo u qaban karin ilaa ma waxa weeyaan functional groupska waxa weeyaan loo isticmaalo. marka functional groupska waxa weeyaan ayagu waa active parties waaye waa qaybo oo shaqeynaya weeye yani shayga hydrocarbonka haddii functional group lagu dhijiyo wuxuu noqonayaa wax shaqeynaya ayuu noqonayaa. tusaale مثلا hadda waxaa ka mid ah methyl ka mid ah مثلا ethyl ka mid ah. ethyl markii bromine lagu dhijiyo ethyl bromide wuxuu noqonayaa wax oo active ah oo shaqeynaya ayuu noqonayaa. marka chapterkan waxaan kaga hadli doonaa hadduu ilaa yiraahdo functional groups qolo la yiraahdo kooxyo oo functional ah oo shaqeynayo ilaa 7 gaarayo alcohol, phenol, ether aynu uga hadli doonaa. ilaa 6 weeyaan ayagu ester ku jiro, aldehyde ku jiro, ether ku jiro, ketone ku jiro ilaa 7 ay gaarayaan. marka ayagu some books ilaa waxay geynayaan 8 waxa weeyaan waxay ku soo darayaan amine ay ku soo darayaan. haddaba aynu qeexno functional group maxaa la yiraahdaa. functional group haddaynu qeexno waa an atom or a group of atoms within a molecule that give a certain characters to the organic compounds. functional group waxaa lagu qeexayaa inay yihiin waa atom weeye ama waa koox atomyo ah oo molecule ku dhex jira yani isku dhis ayay ku dhex jiraan atomyadan that give a certain characters waxay siinayaan astaamo khaas ah ay siinayaan to the organic compound isku dhiska organiga ay astaamo gaar ah ay siinayaan. waa atomyo weeye ama waxa weeyaan waa groupyo atomyo oo isku xiran oo waxa weeyaan isku dhiska siinaya astaan u gaar ah. tusaale مثلا haddaan soo qaadano methyl oo kale waa functional group ayaan ku dhejinaynaa مثلا sida waxaan ku dhejinaynaa hydroxide oo kale. marka waa koox atomyo ah weeye waa hydrogen iyo oxygen waan. compoundgan oo ah ethyl ahaa waxay siinayaan marka astaan u gaar ah. meeshii ethyl ahaa hydroxide marka lagu qabto muxuu noqonayaa marka ethanol oo noqonayaa. marka ethanolka marka yaa wato olka yaa wato hydroxide kana wato. marka saasay qiimo u leeyihiin functional groupska. dhammaan functional groupska 7 ka mid ah waxaan kusoo koobayaa jadwal ayaan kusoo koobayaa intaanan mid u kala qaadin hal jadwal ayaan ku wada sharxayaa ka bacdina mid baan u kala qaadi doonaa. jadwalkan aan kusoo koobaynaa functional groups waa intaan waa alcohol, waa aldehyde,
وكيتون وإيثر وكربوكسيليك أسيد وإسترس وأمينس waxyaabaha marka waxa weeyaan hydrocarbonska ku dhagayo waa lixdan bay toddobadan bay noqon karaan oo ah alcohol in waxa weeyaan organic compound-gaaga oo noqdo alcohol inuu noqdo waxaana lagu garanayaa functional groupkana lagu garanayaa hydroxyl groupkan hydroxylka ku dhagayo oo ah OH hydrogen iyo oxygen inay ku dhagaan hydroxyl inuu ku dhago haddii waxa weeyaan organic compound uu ku dhago hydroxyl group compound-gaas alcohol la dhahaa qaabku uu imaanayo formuladiisna waa sidan alkyl groupkii ayaa waxaa ku dhagayo hydroxyl groupka ku dhagayo tusaale waxaa ka mid ah kana ka mid ah masalan ethyl buu ahaa markii hore hydroxyl group baa lagu dhajiyay muxuu noqonayaa ethanol ayuu noqonayaa marka waxaa loogu dhawaaqayaa ethanol ayaa loogu dhawaaqayaa aldehyde ayaa ku xigo aldehyde group waxa weeye waxaa lagu yaqaanaa ayaguna carbon iyo hydrogen iyo oxygen ayaa waxa weeyaan lagu yaqaanaa saddexdaas hadday isku dhagaan compound laga dhexelo waxa weeyaan waa aldehyde qaabka formulada uu ku imaanayo waxa weeyaan alkyl groupka ayaa waxaa ku dhagayo carbon iyo hydrogen iyo oxygen waa aldehyde baa la yiraahdaa horistiisna marka waxay noqonaysaa qaabka loo akhrinayo kan waxaan dhahnay all ayuu ku dhamaanaa kanna wuxuu ku dhamaanayaa al ayuu ku dhamaanayaa waa laba carbon means ethanol oo noqonaya marka ethanol oo noqonaa al oo ku dhamaanaya ka saddexaad waxaa la yiraahdaa ketone functional groupkiisa waxaa loo yaqaanaa carbonyl group yani carbon iyo oxygen ayaa dhexda ka gelaya inta badan asagu labada dhinacna waxaa qabsanayo alkyl groups ayaa qabsanayo dhexdana carbon iyo oxygen aa gelayo compound-ga noocaas oo kale waxaa la yidhahdaa ketone ayaa la yidhahdaa wuxuuna ku dhamaanayaa horistiisa on oo ku dhamaanaa on ama one ayuu ku dhamaanaa tusaale masalan hadda kan aqri meth is probanon alama probanon aa loogu dhawaaqa probanon ethers ka afaraad waxaa la yidhahdaa ether waxaa astaan u ah asaguna uu ku shaqaynayaa o ayuu ku shaqaynayaa ama oxygen ayuu ku shaqaynayaa odaas oo ku shaqaynayaa labada dhinacna alkyl ay qabsanayaan r iyo r alkyl waa dhexdana oxygen ayaa gelayso waxaana loo aqrinayaa oxy ayaa loo aqrinayaa isagu oxy aa loogu dhawaaqayaa tusaale masalan kan waa methyl kanna waa methyl oxy ayuu ku dhamaanayaa laba aqrin ayuu leeyahay oo ah methoxy in la yiraahdo methoxy methane ama wuxuu kaloo leeyahay dimethyl ether waa lagu dhawaaqi karaa isagana waa arki doonaa mid walba markaynu gaarno carboxylic acid waxa weeyaan waa carboxylic group weeyaan waxaa lagu garanayaa isagu c iyo OH ayuu ku dhamaanayaa waa alkyl groupkii ayaa waxaa ku dhagayo carbon oxygen hydrogen ayaa ku dhagayo waxaana loogu dhawaaqaa hadhow oic acid aa loogu dhawaaqaa oic acid aa loogu dhawaaqaa oic acid kanoo kale hadda waxaa la yidhahdaa ethanoic acid maxaa dhacay laba carbon wey means ethanoic acid ayaa la yidhahdaa ester group weye waxaa lagu yaqaanaa carbon oxygen ayaa dhexda ka gelayo labada geesna alkyl ay qabsanayaan asna wuxuu ku dhamaanayaa O8 ayuu ku dhamaanayaa O8 ayuu ku dhamaanayaa horistiis amines waa ka ugu dambeeyo waa amine group waa qolyaha aminka la yiraahdo waa alkylkii ayaa waxaa ku dhagayo amine aa ku dhagayo tusaale masalan waxaa kamid ah ethyl amine aa kamid ah amine aa loogu dhawaaqay intaas waa sharaxaad guud oo ku saabsan dhammaan toddobada xabo ay ka samaysan yihiin functional groupska
mid baynu uga hadli doonaa alcohol aynu ka hormarno. ka koowaad alcohol baan ka hadlaynaa. alcohols haddaynu ka hadalno alcohols waxaan ku qeexi karnaa inay yihiin organic compounds which contain hydroxyl as a functional group. waa organic compounds waa isku dhisyo organic ah oo ka kooban hydroxyl ay ka kooban yihiin waa kan ay ka kooban yihiin as a functional group. functional groupkoodii groupkan alcohol waxaa ka shaqaynayo hydroxyl baa ka shaqaynaya. tusaale haddaan keenno mathalan waxaa ka mid ah example waxaa ka mid ah methanol ka mid ah. methanol waa alcohol waaye marka meth ay ahayd methyl ay ahayd oh markuu ku dhago methanol loogu dhawaaqaa. methanol marka waa waxa weeyaan alcohol weeye waxaa loo yaqaanaa wood alcohol ayaa loo yaqaanaa. magaca labaad ay leedahay methanol baa la yidhaahdaa. waa lagu sumoobaa waa alcoholada la yaqaan weeye 15 milliliter qofka hadduu isticmaalo araggay tiraysaa. 15 milliliter oo alcohol qofka hadduu isticmaalo araggay tiraysaa. haddii uu ka badsadana 100 ilaa 200 milliliter uu isticmaalana waxa weeyaan inuu dhinto ayay keenaysaa. marka waa methanol loogu dhawaaqaa midaan. structure-ka labaad waxaa ka mid ah ethanol ka mid ah. ethanol waxaa laga helaa dhammaan khamrada oo dhan laga helaa. khamrooyinka oo dhan ethanol waa ay ku jirtaa. iyaduna waxa weeyaan waxaa laga diyaariyaa marka la khamiiriyo badarka iyo sonkorta la isku khamiiriyo ayaa waxa weeyaan iyaduna laga helaa ethanol ayaa loo yaqaanaa. waa laba tusaale oo ku saabsan structure-ka. classification of alcohols ayaan halkan ka gelaynaa. classification of alcohols. alcoholska ayaan qaybinaynaa. waxaan uga qaybinaynaa dhowr qaybood. kow waxa weeyaan monohydroxyl alcohols. monohydroxyl alcohols waa alcoholooyin oo hal hydroxyl leh oo hal hydroxyl keliya ku dhegaya. tusaale maxaa ka mid ah kuwaana ka mid ah mathalan methanol ka mid ah. waxaa ka mid ah ethanol ka mid ah. waxaa ka mid ah propanol ka mid ah. kuwaan oo dhan waxaa la yidhaahdaa afwan walaa dhiman propanol ka mid ah. kuwaan oo dhan waxaa la yidhaahdaa monohydroxyl alcohols waa alcoholooyin oo waxa weeyaan hal hydroxyl leh. tan hadda waa methanol, tanna waa ethanol, tanna waa propanol weeye. waa hal hydroxyl ay leeyihiin. okay waxaa kaloo ka mid ah monohydroxyl alcoholska ayaa waxaa loo kala qaadaa primary alcohol, secondary alcohol, tertiary alcohol. ayagaa saddex loo kala qaadaa. kuwa halka hydroxylka ku dhegaya ayaa saddex loo kala qaadaa oo ah primary alcohol, alcohol qabsanaysa kaarboonka koowaad qabsanaysa. tusaale waxaa ka mid ah ethanol ka mid ah, kaarboonka koowaad ayay qabsatay. primary alcohol la yiraahdaa.
secondary alcohol ayaa jirto alcohol qabsanaysa kaarboonka labaad عفوا kaarboonka labaad ay qabsanaysa kaarboonka labaad ay qabsanaysaa marka waa kan tan oo kale weyn meth is prop halkaas waxaa la yidhahdaa marka propanol aa la yidhahdaa maadaama kaarboonka labaad ay qabsatay maxaa dhahaysaa two propanol aa la yidhahdaa two propanol tan waxay ahayd ethanol kaarboonka labaad maadaama ay qabsatay waa tirinaysaa meesha hydroxylka uu ka dhow yahay ka tirinaysaa 1 2 3 2 propanol aa leedahay tertiary alcohol alcohol waxa weeyaan qabsanaysa tertiary aa la yidhahdaa iyaduna kaarboonka labaad ay qabsanaysaa laakiin waxa weeyaan tan oo kale waa marka tertiary aa la yidhahdaa kaarboonka labaad ay qabsatay laakiin waxay dhexgelaysaa laba alkayl dhexdooda ay dhexgelaysaa laba alkayl dhexdooda ay dhexgelaysaa marka tan oo kalena waxaa la yidhahdaa tertiary alcohol baa la yidhahdaa intaas waxa weeyaan wixii ku saabsan monohydroxyl alcoholiska ayay ku saabsan yihiin waxaan gelaynaa dihydroxyl alcoholis dihydroxyl alcoholis alkalooyinka oo laba hydroxyl leh tusaale waxaa ka mid ah tan oo kale ka mid ah waxay qabsatay laba meel ay qabsatay dihydroxyl alcoholis aa la yidhahdaa waa tirinaysaa marka 1 2 3 waay marka maxaa dhehaysaa 1,2 aa leedahay 1,2 yani kaarboonka koowaad iyo kaarboonka labaadba waa la haystaa sidii awal alkeniska aanu akrin jirnay meth is propan aa leedahay maadaama laba ay tahay diol aa leedahay 1,2 propan diol qaybta saddexaad waxaa la yidhahdaa trihydroxyl alcoholis alkalooyin oo waxa weeyaan 3 hydroxyl qabsanaya tusaale mathalan cafwan tan oo kale ka mid ah iyaduna waa aruurinaysaa le waxaa leedahay dhammaan waa ka dhowdahay 1 2 3 1,2,3 aa leedahay meth is propan so 3 maaha triol aa leedahay marka triol saasaa loogu dhawaaqaya 1,2,3 propan triol ayaad ugu dhawaaqaysaa dhegaystayaal daawadayaal casharkeeni maanta ku saabsanaa chapterka labaad functional groups aynu kaga hadlaynay alcoholiska qaybta hore halkaas aynu kusoo gabagabeynaynaa fadlan subscribe garay oo la soco kororso aqoon channel casharo muhiim ah oo chemistry waxtar leh kala soco haddii aad hore u share garaysayna haddii aad hore u subscribe garayday sii share garay wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu